رمضان ودمادي خير كيسي iyo ajarkiisii uu la dhamaaday qofkii wanaag soo shaqaystay ilaahay hortiisa waxa uu ka rajeynayaa biidnillaahi alkariim in uu khayr iyo barwaaqo iyo abaalmarin wanaagsan uu ka helo ninkii aan khayr soo shaqaysan ee saa uu ku dhaafayna waxa weeye waa qofkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay oo ahaa qofkii khayrkiisa laga xarimay faqad xurim laakiin wali fursad buu qofkaasi haystaa hadduu ilaahay u toobad keeno wixii horena uu ka baxo ilaahay subxaanahu wa tacaala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بقرآن كيس كله الضوء ماذا حد قد بيو الضوء ماذا حد قد بيو نهاريست إلهي كقوسننا إلهي الذنوب تدور رافع مركا هذه رمضان وكقول رافي عبادة الآن يصون الآن ولي فرصة بعض هاي ستا أنت أدنوش هاي نفط هالكاس إنسان قارن قرحتنا آني قلبت كصبيحين أنت الضباطات ولا ليال وحا إسوي الدين مدن محاحقة بشهر رمضان بشهر رمضان وحا حيقة وحا ويه إن قفك مسلم كأه وعبادتي ورمضان كسوودي وجوكتيه محايا يلي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو حكولي يهي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربك عابد إلا أي أنت أتكلم نيسو يعني إلا أنت أتكلم نيسو marka aad dhimanaysan ma ogid cid og ma jirto goortu dhimanayo sidaa darteed baa xigmadda ka dambaysa waxay tahay qofka muslimka in uu cibaadada joogteeyo mar walba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ramadaan hadii uu dhamaaday soon ma dhamaan waxa hortaada ah nabiga kaleey salaatu wasalaam sunnadiisa oo inuu isniinta soomi jiray khamiistana uu soomi jiray waxaa kaloo hortaada ah inuu bishii 3 maalmood ka soomi jiray 12 13 14 ama 13 14 15 maalmaha cadada loo yaqaano waxaa hortaada ah oo iman doonta shahrullahi almuharram yaani soon ma dhamaanin hadii bisha ramadaan u dhamaaday waxaa hortaada ah xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ahaa ninkii hal maalin ilaahay dartii u sooma waxa uu naarta wajigiisa ka fogeeyaa 70 khariifan 70 sano meel loo socdo sidaa darteed hadii ramadaan u dhamaaday soon ma dhamaan soonkii wali waa uu joogaa haddii ramadaan uu tagay salaadii ma dhamaanin salaadihii sunnaha hortaada ah haddii ilaahay kuu qoray salaatul leyl ba hortaada ah waxaasoo dhan waa acmaasha ku sugaysa acmaasha ugu wanaagsanna ay ka mid tahay haddii ramadaan uu dhammaaday sadaqa weli ma dhammaanin qaraabadii baa joogta dadkii maaragta u baahnaa masaakiintii baa joogta yani acmaashu way soconaysaa ilaa iyo inta ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan uu ka maaragtay duminayo oo ilaahay aakhiro uu keenayo waxa weeye acmaashu way soconaysaa sidaa darteed qof walowba ogow dib ha u noqonin gadaalna ha u noqonee hore u soco waxaana la yiraahdaa amalka in laga aqbalay waxa lagu ogaan karaa ama calaamadihiisa kamid ah afwan cid ogaan karta ma jirto in amalka la aqbalay ilaahay bay horta allah laakiin calaamadaha ay culimadu yiraahdaan lagu garto waxa kamid ah in qofka shaygii wanaagsanaa uu soo sameeyay markii amalkii dhamaado uu ku xijiyay amal wanaagsan mesela ramadaan baa dhamaaday in qofkii acmaashiisi wanaagsana uu sii wato waxa ay biidnillah u muuqanaysa ama calaamad u tahay in qofkii amalkiisi laga aqbalay laakiin hadii qofka intuu amal wanaagsan la yimid markii amalkii wanaagsana dhamaaday uu meeshiisa ku laabtay wal iyadu billah waxay culimadu yiraahdaan calaamad waxay u tahay qofkaas inaan wixiisi laga aqbalin sidaa darteed acmaasha hal la joogteeyo ramadaan haduu tagayna ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbu ramadaan asaga rabbi u ah shuhurta kale oo jooga وربنا الذي ما رجت إلهي أن نجو أدونصدي إن أن نعبدنا وهو حي لا يموت إلهي سبحانه وتعالى ومن نول أن ولي دمنين عبادتي لو تلقلنا لجا وكاجباهن الله واحد أوتا عبادة أن عبادة سنة إنه وحي ملكي سكوكر دين سنة مله هدي أن عبادة سنة وإننا وحي ملكي سكن قصامين سمله لكن ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ninkii ma aragtay shukri la yimaada naftiisu wax taray ninkii rabbi diidana ilaahay subhanahu wa ta'ala ghaniyun kareem way sida darteed walaalayaal cibaadada hal joogteeyo bisha ramadaan wixii aad soo dhistay haduminin oo xumaan ha ku noqonin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amalkeena joogto uu ka dhigo waxaan isu dardaarmaynaa nafteedii tiina baan u dardaarmayaa in amalka joogteynta aan ku dadaalno qofku uu yimaado goobaha uu iimaankiisa ku kordhin karo oo ah masaajida ilaahay iyo duruusaha iyo maaragtay aad ku xirnaato maxaa yeelay iimaanku ma taagnaanaya meeshiisii marna wuu kordhaa marna waa nuqsaamaa sida caqiidada ahlus sunna wal jamaa ay tahay oo iimaanku wuxuu ku kordhaa taacada iyo wanaaga qofku markuu sameeyo wuu kordhayaa waxaana uu ku nuqsaamaa ama uu hoos ugu dhacaa marka uu qofku daacadii iyo wanaagii uu ka dheeraado si marka daacadaada ay u badato iimaankaaguna u kordho imow goobaha iimaanka lagu kordhisto masaajida ilaahay
akhri quraanka oo bisha ramadaan haddaa quraanka akhrin jirta ha joojinin maxaa yeelay quraanka akhriskiisa qiyaamaha uu ku shafaaca qaadi doonaa qofka muslimkaana waxa la rabaa kitaabka ilaahay inuu noloshiisa ka dhigto ugu yaraan haddaad wax kala awoodi weydo aad caajisto maalinkii inaad hal jus akhriso ramadaan wuxuu ahaa tababar naloo soo diray ilaahay uu noo soo diray nafta lagu tarbiyeynayo cibaadada noocyada kala duwan leh ee soonka quraan akhriska sadaqada intoo dhanba uu kulansaday laakiin markuu dhammaado intiiba way ku sugayaan qof wala uu ku dadaal inaad sii joogtayso allah waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwa camalka wanaagiisa sameeya qaata hadalka wanaagsan kuna camal fala camalkeenana uu joogteeyo waxaadna ogaataa oon kusoo khatimaya nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii ahaa axabu alacmaali ila allah maadaama wain qal acmaasha ilaahay waxa ugu jecel yahay xaggiisa ama camalka ilaahay xaggiisa loogu jecel badan yahay waxaa weeye waa camalka joogtada ah haba yaraadee